madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ay kamid ahaayeen wasiirada duulista iyo hawada chief of cabinet-ka iyo taliyaha ciidanka booliska Somaliland iyo saraakiil sarsare oo xukuumadda ka tirsan ayaa socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyo jiidaha gobolka kumanaan kamid ah dadweynaha reer Saaxil oo isugu jiray haweenada dawladda shirkadaha indhadeero shaqaalaha maxjarada iyo dadweyne tiro badan oo watay gaadiid ruuxayna caleemo qoyan iyo sawirka madaxweynaha ayaa isugu soo baxay soo dhaweynta madaxweynaha ugu horeyna waxa uu madaarka magaalada Berbera halkaasi oo uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidamada bamboyda kadibna waxa uu madaxweynuhu dhex maray madaarka Berbera iyo terminalka lagu kordhiyay oo soo kormeeray intaasi kadib waxa uu madaxweynaha Somaliland xariga ka jaray wado kamid ah wadooyinka toddobada ah ee dowladda hoose ka hirgelisay magaalada Berbera waxaana uu sidoo kale xariga ka jaray qalabyo cusub ee dekedda Berbera iyo dayactiro lagu sameeyay barxadda dekedda Berbera madaxweyne Axmed Silaanyo oo ka hadlay xarunta dowladda hoose ee Berbera ayaa si baaxad leh uga mahadnaqay dadkii reer Berbera iyo gobolka Saaxil ee soo dhaweeyay iyo waliba horumarka ka socda magaalada Berbera waxaanu yiri taliyaha gobolka iyo meeyarka iyo mas'uuliyiinta halka xilka ka waraysa iyo mahad balaaran soo jeedinaya hawlaha kala duwanaya sida qiimaha iyo qaalaha ay leedahay lagu soo dhaweeyay maanta magaalada Berbera ilaa inta ay xuduudda gobolka Saaxil soo galay aad iyo aad ugu mahadcelinayo waxaan kaloo ku hambaleynayaa oo weyn soo jeedinaya hawlaha iyo waxqabadka laxaad kale ee qiimaha leh ee waxa faanaca ee waxa ku dayda oo maanta qaar koosay oo Berbera ka buuqay hawsha laga qabtay أنا اللي هوا عم برد كده Berbera ومال الوها وين هاي ومال وكلا هاي دمع وين يساوي وانت ونكسب بالدوله لكن ما تو حكم مقطع الفقراء إلى حلكي يبدأ هايسي أما حوالي أمنيات وكقطع الدولة إنه إلى وين نقطه ومدى يقارك وهسدا وركع يهول الملك يجلس كاف كودن tugaa degmada Berbera Cabdulla Maxamed Cali oo madaxweynaha hortiyalkaasi ka hadlay ayaa sheegay waxa jawaabteedu noqotay dawladda waysan oo digada misaaladii way baaskareeyeen laakiin waxa ka qaadi waayeen bulshada Berbera iyo bulshada madaxweyne Maxamed Siiraayo madaxweynaha barasaabka gobolka Saaxil Maxamuud Cali Salebaan ayaa u mahadnaqay dhammaan hay'adihii waxqabadyada kala duwan ka fuliyay gobolka Saaxil ugu dambeyntiina madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu shahaadooyin guddoonsiyay maayirka magaalada Berbera Cabdulla Maxamed Cali wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi Maariyaha dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir kuwaas oo dhamaantood ku mutaystay waxqabadyadii ay ka fuliyeen gobolka Saaxil waa markii ugu horeysay madaxweyne Silaanyo uu socdaal ku tago gobolada dalka taniyo intii loo doortay jagada madaxweynenimo ee dalka waxaanu gobolkii ugu horeeyay oo socdaal ka tagay ee Saaxil kala kulmay soo dhaweyn aad u ballaaran oo aan la ilaawi karin Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera